tuulada labi sagaale xadka ku dhaca labada sakadood iska soo horjeeda dhinacna waa Soomaaliland oo calankooda xaggaas ku yaala dhinacan kalena waa Ethiopia وكذا ورقة تريرو واي ولا سوق الله ولا سوري ولا سوق تغايو روح وبري ولا سجارة حقاس بريد ويكمل هاي بيوجد بيسي هاي لكن هلكن ودغن سومالي راحت habeenkii wuxuu lagu saaxday subax waxa lagu barisay wax la isweydiiyo kusoo dhawaada barnaamijkeena Hareeriya Hargeysa oo toddobaadkan idinka imanaya dhulka hawdka gaar ahaan deegaanka Labi Sagaale waxay ka mid tahay tuulayaasha uu maro xadka u dhaxeeya Soomaaliland iyo Ethiopia waxaana ay ka mid tahay dhulka caanka ku ah xoolo dhaqashada Labi Sagaale waxa ay la wadaagtaa deegaamadan hawdka ee kale iyadoo marar fara badan biyo la'aan ay ka dhacdo oo markaasi ay abaarsadaan xoolaha ku nool halkani si dhibaatadaasi looga baxo ayaa haddaba imika waxa jira dadaal lagu dayactirayo balli waa hore loo sameeyay deegaankan balligaasi hawshiisa waxa gacanta ku haya injineer Rashiid Xaaji Ibraahin oo isagu wada hawsha lagu hagaajinayo balligaasi si markaasi deegaankan Labi Sagaale uu uga baxo baahidaasi dhinaca biyaha inta haddaba aynaanu gelin hawshaasi Rashiid Xaaji Ibraahin oo ka wada halkan iyo waliba waxa deegaanka lagaga nool yahay iyo sida dadka deegaanka ay u dhaqmaan marka hore Maxamed Cumar oo kamid ah rag odayaasha deegaanka ku nool ayaa iiga sheekaynaya bahada deegaankan dadku markay toosaan subaxdii sida xoolaha loo foofiyo iyo waxyaabaha ugu horeeya dadka reer miyiga ay sameeyaan markay indhaha kala qaadaan فلو السيكر دايما قرنس واي او فوفسنا ما موقت واي دول ميسي براعه واطي دونا قولي حلينا برادين وحو بريستان واسكو بريستان حلت ساعات شايك ولا كل هي واطي كل حلول كل دان لك حيو كل قرنس هاي ما كان هولو يسكفر بدين ان محمد dadka deegaankani sida qiyaasay way soo wada yaqaanaan subaxdii marka la tooso reero ma kala warqaataan oo ma la isweydiiyo waxa lagu bariyay ها وكذا ورقة reero way ولا سوق الله ولا سوري ولا سوق تغايو reero wuxuu bari wala sgaadha waatay marka xoolahan imika ariga oo kale maadaama barwaaqo ay tahay inta dhaafi maayo reerka u dhow Soomaa dhaafi ha oo barwaaqo ma dhaafinta inta sadaqaya waatay marka caadiyan hawsha reerku goormay bilaabantaa hawsha day kul waxa bilaabantay hawsha ma dhamaato way ma dhamaato nimo wuxuu qabtaba ma dhamaato hay goormay bilaabantaa subaxdii marka la tooso subaxdii marka la tooso waa foftana nimo meesi buu raaca kula haaga way si shaqo kale هاي يا هاي من لحظة لتوصى مشانتي يبركة تكون بدل لحظة توصى ميو لحظة توصى حلي كانوا كلاو إلا تضبطي الربع على حولها اللي فيها واطي انجينير رشيد حاج إبراهيم محمد أيها يسوون هالكنا لتشوجا ومدير كوسون نوراد الكامريكان كا رشيد بل أنت هنا نقولي هاوش هالكن كوضو يبلغ أنا أدرس إنسانيو مريكانو مدير تكون نورين dadku
subaxdii markay toosaan sidee loo toosaa horta والله عبد السلام الكورت نمد ما كسكي هاي واتي لكن زي مركي قد بيسي waxaan xasuustaa koofigii magii la sii qaadan jiray traffic jamkii dhici jiray ayaa horta lagu toosi jiray halkan oo kale saaka waxaynu ku toosnay dacida ariga iyo dhawaaqa shimbiraha urgacda eeysa dhawaaqa xoolaha inta badan waxa lagu toosaa wixii aynu yaryaraantii ku koray marka aniga qudheedaad baan u jeegarayaa inaan habeenadan seexdo halkan ama meelaha kale aan ka shaqeynayno way iga duwan tahay subaxyada kale marka waad ka raysatay saacaddii maraykanku toosinaysay miya rasha warkii of course iyo saacaddii ka horreysay dhowrka goor la iska baktiinayay saacaddiiba alarmkiisa wixii dhici jiray iyo rasha warkiiba wax badan maxamed cumar wuxuu inoo sheegay imika in dadku markay subaxdii toosaan in reeru ay kala war qaataan oo la yidhaha maxaa lagu bariyeeyo lays xaal waraysto xaggaas sidee ahayd xaggaas baryadu way koobnayd oo hay bay ugu dambeysay laakiinse halkan waa dhaqan soomaaliyeed ahayd habeenkii wuxuu lagu saxday subaxii waxa lagu bariistay wax la isweydiiyo reerku muxuu ku bariistay saaki sidee leeyahay waa waxyaabo dadku lisku ogaado qof waliba waxa uu ku sugan yahay gartay halkan deegaankan dabcan waa dadku waa iswada yaqaanaa xagga waxa dhici jirtay soo maaha ama dhacdaba in ana de jaarkaaga qaar fara badan oo ka mid ah aqoonin aad iyo aad dadku kulliyo waxa jirtay waxyaabo xaggana ka ah de waxyaabaha ugu importansan aqoonta deegaanka qofka ku soo biira ka martida socda laakiin sidee sidaynu ognahay ama aynu actually waxaa jirta xaggaas waxa la privacy baa haydo qofna qof ka kugu xiga waxa lagu qabanayo guriga ku xiga ya waxay ahayd privacy markaa actually waxay ahayd very difficult inkastoo sidii hore baan u sheegay deegaanka Labisagaale uu ku yaalo xadka u dhaxeeya Soomaaliland iyo Itoobiya haddana dhinaca waxa naga xigta magaalada Hargeysa oo imika inoo jirtay ilaa 90 mayl oo kaliya ama ilaa 120 kilomitir marka magaalada Hargeysa sida uga ma foga laakiin haddana waxa jirta dhibaatooyin fara badan oo dhinaca caafimaadka ay ku qabaan dadka deegaankani iyadoo odayaashu sida ay inooga warrami doonaan ay sheegeen in xarumo caafimaad ama goob caafimaad aanay ku ool deegaankan oo qofka markaa ku xanuunsada ama gabadha umulaysa loo qaado magaalada Hargeysa iyagoo ay sheegay in marar fara badan ay dhacdo in dumarku ay umul raacaan intaanay gaadhin xarumaha caafimaadka ee magaalada Hargeysa arrimaha hadhow bay inooga warrami doonaan laakiin bal hadda marka hore mid ka mid ah haweenka deegaankan oo samaynaysa hawlaha ugu muhiimsan ee subaxdii haweenku ay sameeyaan waxa weeye lulitaanka caanaha weergoda wixii yaalay soo naga garbay maaha
القدم وحيا ليس ونقا قنقمي معها هوبي هانتا هوبي هانتا قعل كاينا مالسين قعل كاينا كومتوني بقروف لك رقوي قريبان كسوقاضي نيارات بابيني بران برادو كوكو حياني لا هو يبعوي ما شاء الله هاس قيمة لوي دي وحل برواقان اللي قلت مركا يمكا عنوا بدين هاي هانتا أور براق دحدان دور odayaashii berigii hore waxa loo oran jiray qorqoda jiri jiray هاي way da way qorqoda jiri jiray baa leeyahay way marka islaamaha haantu ilaalin jiray burcadkeeda هاي le waa sheeka waxaan busaaday هاي salaadii buu doono awrtii baa ka luntay way buu dabeedna doono dabeedna haantii buu ku soo noqdo wuxuu yiri balin la shubtiyeen kale هاي هوبي dabeedna wuxuu yiri hoobeey haanta awr baraaq inaanayna shay awr baraaq dhacdaan dooray naafaaya ma fayoobido koogiyay ilaygii lama furfureen ma furtaa laga dhuugay way marka gabadhiina maxay ugu jawaabtay hadaba soo saartay waxay ugu jawaabtay miyaan haya هاي waxay habadka gabadhiina ugu jawaabtay هاي waxay tiri hoobeey haanta naya dhicdhica dhabaar yar naya dhicdhica هاي qolaaligay baratay qoraansigay aragtay way wad odagida waxay tiri qolaaligay baratay qoraansigay aragtay qoolaha ragay baratay jawaabtii ku haboonayd baa la siiyey هاي qodii saasay sida imka arkaysaan geeli waxa lagu lisayaa madiibad halkii berigii hore dhiilka lagaga lisi jiray waxaanu imika taagannahay xadka u dhaxeeya Soomaaliland oo dhinacana iyo dhinacan kale oo Ethiopia tuuladan labi sagaale xadka ku dhaca labadan sakadood iska soo horjeeda dhinacanna waa Soomaaliland oo calankoodii xaggaas ku yaala dhinacan kalena waa Ethiopia laakiin dadka deegaanka waxay sheegeen maadaama dad isku mid ay degan yihiin oo beel kaliya ka soo wada jeeda dhinaca dadka iyo dhinaca adeegyada markay noqotoba waxa la yaaliyo waxay ku kala duwan yihiin aanay jirin haddana waa sababta inta badan ama marar fara badan dhalisa dhibaatooyinka xuduudaha ka taagan ee qaaradda Afrika dadkii waa isku mid deegaankii waa isku mid dadka xoolo dhaqatadiina iyagu xadba ma kala laha oo marba dhinac bay u tallaabaan laakiin sikadanina waxa weeye labi sagaal waa Soomaaliland sikadanina waa Ethiopia هاي marka makhaayadda qalada fadhida waa Ethiopia iyagu miya هاي waatay labadii dhinacani haye iska warrama soo lama wanaagsana ma sha Allah labadan daawad marka maxay ku kala duwan yihiin waxba way aywa
هاي واي ها حد كانوا بيكون كل دوين ما وحبكم ما كلا دوانين نمبالي بالكو دورا يوم بيستاجا هاي دين عن عسكرتي سومال لما كوركي دين عن كلا إثيوبيا نيمك تشوف هاي ومركا إثيوبيا عسكري بكتشوف تالكن واطي اوكي maamulkaad ka mid tahay mise ciidanka maamulkan ka mid ah anigu ها maxaad ka tahay markaa maamulka waxaan ka ahay gudoomiye ku-xigeenka maamulkan gudoomiye ku-xigeenka maamulkan 29 dhinaca Itoobiya waa tahay markaa maxaa ka qabataan halkan idinku Itoobiya ahaan xagga nabadgelyada aad uga shaqeynaa waa tahay saawiye markaa dhibaatooyin hadday idinku yimaadaan yaa u qaylo dirsataan waxaan u qaylo diranaa waxaan dhinaca Itoobiya halka dawladdu ay joogto goobtii fariisiga koowaad dawladdu leedahay ugu dhowdii imika laakiin waxaan ku arkay adoo makhaayaddan kale ka soo baxaya dhinacan Soomaaliland markaa qoladana wada shaqeyn baa ka dhaxaysa miya طبعا tamiyaan Itoobiya Soomaaliya sidaba aan wada shaqeyn ka dhaxaysa waad mahadsantay ان وكالكا كموقد عالمكي إثيوبيا maadaama dhinacani Itoobiya ay tahay kii Soomaaliland sidaan markii hore sheegay dhinaca kale suran yahay Itoobiya jooga haddaan dhinacan laba talaabo qaadana waxaan joogaa Soomaaliland marka makhaayadana koob shaahan ka cabna kalena koob shaahan ka cabna deedna waxaan oranaa labadii wadan baan ka soo shaahayn markuu xagga ka soo dareeriyo markuu xagga ka soo dareero uu isku darmadaa هاي uu isku darsamaa هادي madaxa mush la garaade هاي telefishan ku daawataan magaaladan may waa tay ugayi oo maxaa ku dhacay qof daawo jiray laakiin هاي waa laga qaaday xagga leerkiya xasa leerkiya xasa ayaa garanaysa oo leerka yaa u shida magaalada waxa uu shibay waxa weeye janaar yaro barafal habeenkii markaa muxuu ka qaadaa laambadii oo kale laambadii oo kale 3,000 shilin waa lacag u dhigantay ilaa $1 markaa dadku say isaga bixin karaan inta meheradaha adigu soo saarta ayuu basheertay dadka waa iska fiinisidooda iyo dadkii maartay iyagu weyn oo balad iyo xaystaan way ka dabaysta هاي marka saasan baa loo isticmaalaa هاي galana soo daawadaas weelkii horey noo soconaynaa والله magaaladu sanay markaa u waa dadka qaadanaysa ma garanaysaa هاي markaa qaybtii hore dhismi hore waa dhismii hore marka kaamiraad ka qaadanaysa ma garanaysaa عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا سكور رما صلى الله في عنا إلهي قلدي صادر لمونك سنة خير وي أهلا وسهلا عليكم السلام هاي marka saasay noo raacayna ma garanaysaa ها guriha adaga ninkan odayga baa ii sameynaya intii wasaaradda dalxiisku ay qaban jireen qaybtaas waa qaybtii hore qaybtana waa qaybta cusub ee magaalada هاي calankeedii soo maaragtid ها marka qaybtana dambeysay qaybtana dambeysay ها cilmaduna kam weeyaha ka deganoo diinta waa la ii sheegay walaal waa la ii sheegay doonayna in adigana qof walba inta subax iyo surku weeyay إذا قفت موجودين توقي قالوا وحقيقة عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا صلى الله فعلا أهلا وسهلا تشبري وصوت وطي هاي ما لقيت تشبري يا هالكنا هاي دورتي با والله هرجيسات خلت مساك باورت واقت معك باورت هرجيسة مريسي وقعت كجور مسوق هالكنا مرة ويد بابي علماء ودي يقوم قيلان برملينيا والله هاي عليكم السلام هذا ريون صادر منك إلهي المعدي سكور رمينا خير وي أنا الشيخ عيسى وخبيع ثم تقالي سفيان أنا كشيخ سلوك قبل ما شاء الله إلا أبها ونوقع تاريخي هاي المكان اللي كان يسوي هذا يرفض خير وي المكان إن الدرجة صايقته ما خصب وي ما هو سرعنا وي وضياشان كل دمانو
مين رشيد sida culimadu ay sheegeen waa ducaysanahay oo baraka ay la socotaa السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ايوه كمان أهلا وسهلا صلى الله في عناد إلهي نعدي سمونك سندي خير يا بركة يا أهلا وسهلا صلى الله في عناد يورادر إن لك على اللي بح محسوس أنت سفي عن سفي عن يا سفي عن السوق حمية بكرنك اسمع شو هذا هو صين 20 سنة سنة ها محمد حسن سنة سفي عن يا اسمع خذي بس بقول كان والله هاي مهدي به بيرها مهدي وريا إيه كو حصلاوة نكان لا إله وريا مهدي نفسك ور مهدي وحو كميد ahaan jiray basketball radii caanka ahaa ee Hargeysa waa ragii aanu ku dayan jiray yaraantayadii imika waxaanu nimi halka laga samaynayo balligan injineer Rashiid Xaaji Ibraahim Maxamed ayaa hawsha balligan imika wada Rashiid goorma bilowdeen balligan inaad dayactirtaan oo habaysaan balliganu horta waqti hore ayaa markiisii hore la dhisay waxay ahayd taariikhdu waqti 1973 waqti dheer baan u raadinay cid maalgelisa oo samaysa waa tahay finally waxaanu helnay Faro Foundation Faro Foundation oo bayskeedu xaruntoodu ay tahay London baahida halka lagu taalo badan waxa weeye absalaam waa biyo laan baa taala biyahana sida lagu helaa intooda badan waxa weeye surface water harvesting taasoo biyaha dusha roobku helayo oo la qabto iyo biyo hoos ku jira deep waterkii oo la raadiyo survey badan baa laga qaaday dhulkan anigu weli ma actually assessment laga sameeyay weli ma taanay laakiin se recordka yaala wasaaradda maalintii biyo aad bay u hooseeyaan waa aad bay u fogyiin aad bay u fogyiin ilaa waxa lagu qiyaasaa 500 mitir ama hadda kama sii hooseeyo ilaa 1 mitir ba marka waxa kaliya halkan laga cabi karaa ama biyo lagu heli karaa waxa weeye biyaha roobka la qabto dadku laba mid baa lagu qabtaa barkadahan yar yar oo aan ka badan karin laba reer hadday abaar dheer dhacdo inay biyo u noqdaan keeda ta kale waxa weeye balliyada yaryar ee caadiga ee kooban kuwaasna waqtiga oo aan jiilaalkiiba la isla gaarin ayay guraan marka hafiir dhaamiskanu waxay weeye balligii oo si ballaaran waqti badan la geliyay investment badan la geliyay oo aad loo qodo kuwa ugu yaran hafiir dhaamiska waxa weeye 100 mitir iyo 100 mitir wixii kan la kasi badan isagu dhan yahay kan waxa weeye 100 mitir iyo 100 mitir oo isku weerar hoosna wuxuu qodan yahay 3 meters and half ma 3 meters and half markaad eegto xaqiiqadiisa wuxuu qaadayaa minimum 35000 meter cubic 35,000 oo meter cubic oo biyaha ayuu qaadayaa which is biyo aad u badan oo muddo badan dadka deegaanka haynaya bal imika aynu soo eegno hawsha ka socota balliga kan waxa weeye absalaano generator roomkii aan imika gacanta lagu hayay waa mashiinka korontada mashiinkii mee waxa eelka bamkii laga soo saaray biyaha daamka ayaa halkan aanu dhigaynaa bamkaasu wuxuu biyaha ku tuurayaa water tankiga halkan ka dhisan ee weyn oo water tankigaasuna wuxuu biyaha sii gaadhsiinayaa kaydka barkada kaydka ka shaysa barkada weyn ee kaydkina waxay u kala qaybinaysaa animal trophiska ay ka cabayaan xooluhu oo meelihii oo bibeska ay ku wada xidhan yihiin ayuu ku cabayaa sida laga albaabaa ku xidhmaya geedhkiisii ayaa hafiir dhaamka halkan gelaya marka halkan cidima soo gelay marka halkan baa halkaas water tankaas ugu dambeynaya meel ay soo gasho
labada operator labada qof ee ka mas'uulka mooyaan cid dambe halkaas oo dhaafaysa ma jirto rashiidow nin engineer baa tahay imika hawshan balligan iyo balliye kala gacanta ku haysa maraykan qudhiis engineernimada kaga shaqayn jirtay bal hadda ka waran shaqada halkan ku haysa iyo tii maraykan maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin baahida meel walba taala waa tahay mucjisooyinka actually xagga waxaanu ahayn xaqada marka laga heego xagga nimanka shaqeystaan wahay shaqaduna qofka barnaamijkiisa buu qiimeeyaa midood ka xoogsataa waxaanu xoogsanayna inaanu noolaano nolosha just enjoy garayno hay tan waxyaabaha differenceka ku leedahay ee really motivationka badan aad ii geliya ama igu kalifay inaan in badan kasii shaqeeyo waxa weeye dadka ayaad u shaqeynaysaa waxaad qabanaysay ayaad arkaysaa ay dadkii taabteen dadkii wax badan u qabatay meelna waxaad meelaan ka shaqaysanayno adigu noloshaada aad qabatid dadka aad u shaqayso dee wax publica aad qabatid laakiinse aana cidina ku ogeyn daha ninkaas waa ninkaa shaqaystay shaqatiga shaqaysanay iminka dadka deegaanka xiriirkiinu siduu yahay dadka deegaanku ilaa xad way appreciate gareeyeen waxaanu la joogno haddaanu nimaadno ma dhaafi karno way qasab ay tahay inayna joojiyaan yidhahdaan neef noo qalaanba ayaan ma tegayna way nagu adkaataa inaanu dhaafi karno deegaanka aad ilaa xad aqoon badan baanu isu leenno ilaa xad bay nagu soo dhaweeyaan aad iyo aadna ay u appreciate gareeyeen ama ay yacni u mahadnaqaan dadka ku soo noqday ee wax u qabanaya ama dhulka kala shaqeynaya دبيكي والدينتنا الله لا أبشرت الله إلا واقف أحضرتنا الله ينقذ خلق خلافك الله ينقذ شركي شيبانك الله ينقذ سلامتي ماشي نكجي ماشي نفكجي أمانة الله ما رسول الله ينقذ حفظ الحما كلنا حافظا للروح ومال ومن أهل لا حفظ الحما كلنا حافظا للروح ومال ومن أهل لا حاجتنا يسير وأنت بها بصير سهل لنا ما نريد ونجينا بما نخاف لا وحن كعب سنة اللي قال لي بتقولي وحن دولنا الله في قبيل بفضلك يا لطيف في الدارين آمنين فلا يبيت بيت صبح بركتي الله يسوقك فاتحة geedkani waxa weeye geedka ay ku arrinsadaan ee ay ku shiraan beeshan degan tuuladan Labi Sagaale geedku wuxuu ku yaallaa masaajidka barxadiisa marka hadba wixii arrinay markaa taagan ayaa odayaasha beeshu ay halkan kaga arrinsadaan maantana arrinta taagan waxa weeye geedkan loogu kulmayaa sidii balligan hay'addu ay u qoday deegaanka Labi Sagaale oo imika hawshiisu gabagaba ay marayso ay dadka deegaanku ula wareegi laayeen una wada ilaashan lahaayeen iyagoo isku xaq dhowraya in si siman biyaha loo wada manaafacadsado marka kulankooda inoo eegi doonaa iyo sidoo dhaco maanta waxay tahay bacdi weyti bacdi waa taab madiga daamku wuxuu marayaa shaqadii ugu dambeysay واتي ولدي يدي فدرسة بعد يدين كده بار فاونديشن ويدي كومي فهذه النجور إيش شيء كده بس ما ترى وده ما يدام والله كيوحها إلى نتيسي شبين تيسي والله كذي بين ما تسوون ما أنا نديك جتك إلا يديك ما نتاعي بنك أي وريتشني قدام كا جد ديني هي أقرن iyo halkii hawshii marayso ayaanu muusow maantaydu ku nimid heshiidow orod aan orodno waxaa noogu badnaa sidii
meesha dee waa soodi sare oo barkadihii laga sameeyeynaa 60 sano calankii way samaysnaan qaarkood daartaynu calanka qaadanay waxa kalena wixii ku dhawaabay haayeen way cimriyeen ciid casbay noqdeen qarnigii sameeyey baraagaha waxba kama noole dee sidii tiiridii la sheegi jiray wax u qaban jiray qarniba u hadha cali 5 mirir la yidhaa oo 5 mirir wuxuu cunay iyo wuxuu eriyaday iyo wuxuu nasiib darra saasay u dayacan yihiin wixii barkad la odhan jiray biyo maaxana ma laha sida dhaamka aanu ugu dholoonaynay sidaa weeyi ilaahay idinla qabtee si fiican baa wax u qabateen waxaanu xaawili doonaa inaannu talo intoonu culumiyo cuquul isugu nimaadno ciddaannu tacabkaa u yeerayno ee aanaan tacabkiinii tacab khasaaray uga dhigin inay beeshu wax isweydiiso inaannu meel wax sii dhigno laabanka dambe inaannu wixii qoraale idiin dhiibno sida aanu ama waa idinala garan ama waxba idinagu kordhin ama waxba idinaga dhimi maalintii tuulada waxoogaa loo jirtaa dadku joogaa laakiin waqtiga habeenkii sidii dhaqanka Soomaalidu ahaa ardaaga lagu kala warqaataa halkana waa halka ay ku kulmaan odayaasha magaaladu odayaashii deegaanka qaar ka mid ah iyo ragga dhismaha balliga ka shaqeeya ayaa halkan ku kulma waxaana iga waramayaan deegaankan iyo waxa lagaga nool yahay iyo taariikhdiisa cawl wuxuu ka mid yahay odayaasha magaalada waana nin markii hore reer magaal ahaan jiray laakiin imika xaggan miyiga u badan cawl muddo intee lag baad halkan aad u joogtay bismillaahi raxmaan raxiim haddii aanu nahay deegaanka Labisgaala anigu waxaan ahay ninka la yidhaahdo cawl camuud guray nin aqoon-yahanaan ahaa muddo imika 10 sano ah ilaa 12 sano les ugu yaraan ayaan joogay magaalada deegaanka Labisgaala haddaan taariikhdeedii dib u yar raaco oon wafdigan cabdisalaan hereri iyo raggan kale sharafta leh la socda aan uga warbixiyo Labisgaala magaalo aad u daaweyn bay ahayd 1956 56 jir baan ahay waan ku dhashay waqtigaa hore magaalo aad u taqadimo bay ahayd gaadiidka xamar baa xitaa mari jiray iskuulkii oo hoose dhexe ah iyo goobtii caafimaadka ama MCH ama health boss ayay lahayd 1962 station police oo dhisan oo maxaa gaariga taagan yahay policeku ayay lahayd magaaladii caynka ahayd 600 iyo 30 barkadood oo sawirka laga mariyay oo biyeysmi jiray ayay lahayd maanta barwaaqa lagu jiraa deegaanku waa barwaaqo ilaahay baa noo nimceeyo nimcaan ku jiraa abaaro badan baase nagu soo maray abaaro badan ayaa nagu soo maray marar baa xooluhuba wax yar nagu soo hadheen oo ay abaarihii nagu lafeen biyo la'aan iyo baad la'aan ay xooluhu nooga dhammaadeen yabaanu na imika xagga nabadgelyo taama baanu ku haysanaa nabadgelyo taama dadka wax khilaafa iyo wax dhibaatii ma dhex yaaliin xoolo dhaqataanno meesha waxa lagu haystaa ninba inuu hayaba waa xoolo dhaqatoo geel iyo adhi baa lagu haystaa marka taa laga yimaado baahida kolkaan ka hadlo ee aan u soo noqdo baahida xagga caafimaadka mid xoolaad iyo mid dadtoona ma hayno waanu aad iyo aad baanu ugu baahannay halkay idinku dhow markaa dhakhtarka noogu dhow mid xoolaad iyo mid
dad ba hargeysa noogu dhow oo inoo jirtay imka kolka anigu xagga mayliskan ka qaanaayo 9 mayl bay hargeysa halkan nooga jirtaa marka qofka xanuunsada maxaa lagu sameeyaa haddii gaadhi loo helo oo gaadhi la carro la helo ama nafa ku gaadhsiiyo ama yaanay ku gaadhina dhexdaba kaga baxdee haddii gaadhi loo helana hargeysaan ula carraa haddii kalena bartan ayuunbaa dee ay kaga dhammaataa ciyaar Soomaalida baa halkan laga oogayaa waa ciyaarihii diiday dhaqanka oo dadka degan deegaankan labi sagaale ay caawa halkan noogu soo bandhigayaan iyagoo lagu soo dhaweynaya ciyaarahan inta badan waxa la ciyaaraa xilliga guga barwaaqadu ay jirto oo dadkii reer miyiga ahaa sida arkaysaan ee deegaanka degana ciyaarta la yaab kale ay soo bandhigayaan inkastoo in muddo la isku yara haystay nimba ninku ka khatarsan yahay in ciyaarta uu galo ama gabadha ay ka khatarsan tahay laakiin waa time ka isku dhacday وعويسك ميجا عيار Soomaalidu waxay ka mid tahay waxyaabaha kulmiya dadka dhalinyarada haddii dadka reer magaalkii ay ruwaayada galaan ama film ay galaan ama dadka wadamada reer galbeedka jooga ay galaan night club ama meel caweysyada loo yaqaano caweyskii labi sagaale iyo miiguna waa kan weli waxa la isku haystaa ciyaartii la ciyaari lahaa iyo sida ragga ay u kala khatarsan yihiin ama gabdhuhu inay u soo kala galaan marka weli dhinacan la isuma raacin laakiin ciyaarta hadda bilaabmaysa aniga qudhayda ay haysaa inaan ka boodo laakiin ciyaarta qaybteeda dambe aan u dhiganayaa ciyaarta haya haya soo saas loo booday haya naga daado waqti naga saar cirkuna waxaad moodaa caawa inuu ciyaarta ka qayb qaadanayo aad iyo aad buu qurux badan yahay dayixu wuxuu muuqdaa si buuxda waana habeen caddaan dumarku ilaa imika jiibintuun bay u hayaan laakiin weli ciyaarta may soo gelin waxaan u malayaa raggii bay ilaa iyo meel ay ka maraan sigadii jaantu ay kicinaysaan waan u soo yaro gooyey yaasiin oo kamaramaanka ayay si fiican ugu dhacaysaa imika waxaan u malaynayaa duraygii soo hayey inuu ka noqon doono imika marba raac baa gelaya ciyaarta waxay imika noo dhammaaday ciyaarihii diiday dhaqanka ama night clubkii laga sagaalaan ka soo baxnay waana 11 rubuc waa la iska daalan yahay marka waan ka gelaynaa habeen wanaagsan